wafdi isugu jira wasiiro agaasimayaal iyo taliyaha daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa magaalada ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax isagoona caasimadda gobolka ku soo dhaweeyay wafdiga wasiirka. wasiir adiga wafdigaaga waxaa farxad noo ah maamulka gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan asagoo isku duuban heer degmo iyo heer gobolba inaan kugu soo dhaweyno degmada Markacday caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose ahna caasimadda ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad na soo gaarto maanta sidaas la mid ah waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano taladaada iyo tusaalahaaga si aan horay ugu sii wadno shaqada aan wakiilku u nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo wasaaradaha kaleba inaan u qabano shacabka gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolkaba waxay diyaar u yihiin taladaada iyo awaamirtaada inay dhageystaan sidaas la mid ah anagoo ajiibayna shirkii adiga aad iclaamisay oo ahaa in gudoomiyaasha heer gobol heer degmo ay isugu yimaadaan xarunta gobolka diyaar ayaan ku nahay waan joognaa si aan u qaadano aqoon kororsi iyo seminaarkii aad ugu talagashay inaan ku hogaamino dadka iyo deegaanada gobolkan Shabeellaha Hoose ku nool. si guud ahaan gobolka xaaladiisa way degan tahay wax dhibaato ah kama jiraan marka laga reebo kooxaha nabadiidka ah oo runtii shacabkan gudoomiyay iyo abaaro ka jira gobolka oo saameyn ku yeeshay shacabka qaybooda kala duwan degmooyinka gobolka meelo kala duwan ayaad insha Allah taala inta degmadan joogtida tagi doontaa waxaad kula kulmi doontaa dad shacab ah oo abaartu ay soo saameysay oo u baahan garab istaag dowladeed u baahan. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay. safarkan ma yahay gudoomiyaha sheegay ujeedo badan waa maro shir guud oo gudoomiyaha iclaamiyay in isku weeriyay gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolka oo inta ka dhigo doona fursadaas oo ku faa'iideysanay inuu wax ku qayb galno thaniyan wasiirada iyo jaran iyo ma indareernay inuu guud ahaan ku galno gobolka iyo xaaladiis abaaro iyo dhibaatooyinka jiraan xerooyinka qaxootiga masbarakacayaasha inuu seeno aragna dhibaatada jartay iyo warbixin maarna uu ku biin insha Allah ujeedooyin badan ka soo wadana kullay hadda hadalkan gudoomiyaha gaabaya anina gaabaya insha Allah muddo roog doon usbuuc roogan insha Allah odayaasha dhaqanka goonaha aan fadaan aragna bulshada qaybad iyo duwanba gooni in la kulmaan Ilaahay idin shay